nadaafadu waa iimaanka barkeed meeshan waxaa la sameeyay tijaabo la yaab noqotay indhahaaga ku macalin noqon doono hadii aadan tijaabadan hore naftaada aadan u sameeynin hadda samee insha Allah oo ka taxadir si aad isaga ilaaliso bakteeriyada insha Allah waxa waaye miikaha ama qoraga cunada lagu karsado hadii aad intad oo ku dhaqdo ama baalir aad ku tirtirsaad aaminsanid inuu nadiif noqonaa maanta kadib waxaan ku warma aamini doontin wasaqda iyo waxa jeermis bacteria gudihiisa ku jiro waxa soo qaadatay gabadhan baaquli biyo ku shubtay biyahaas waxa sameynaysaa way ka karinaysaa dadka saaraysaa in isla aragno kadibna waxa lagu ridi doonaa miikii ama qoriga alwaaxa aha oo cuntada lagu karsado soo waxa ka soo bixi doono waan isla arki doonaa videoga dug soo gaaray xaqiisa si uu videoga noo share garay insha Allah sidoo kalena ra'yigaaga qaybta hoose commentiga in wala wadaag waxaan sugeynaa intii soo kululaadaan bay leedahay waxaan sugeynaa biyaha intii soo kululaadaan waxay soo diyaarsatay wax alla wixii qaanada ugu jiray qaanta ahaan baa dadku inta badankooda deebaalkan wax loogu karsado loo isticmaalo qaantada uu ka fiican yahay soo marka dhowr xabay haysatay intii tira ay haysato dhan ay soo qaaday waxay rabtaa dhamaantood inay ku wada rido digsigaas ay ku karkariso soo waa arkaynaa marka aragtaan inay ku wada riday waxay leedahay bal biyihii way soo karkareen waan ku ridnay aan isla aragno waxa ka soo bixi doono adaa wiswis u dhiman doono waxa laftiisa saliid iyo wasaq iyo wax ku jiro oo dhan baa biyaha kuleylka banaanka soo tufaya marka mar walba waa muhiim inaad iska ilaaliso iska karkariso iska nadiifiso wuxuu waa alwaax waa kaydiye wuxuu dhuuqayaa wasaqda ama saliid laf ahaan ay u galaysaa soo marka inaad maalin walba soo qaadato aad digsiga isaga walaaqato waa iska ilaali aad ay khatar u tahay bakteeriyadaas waad aragtaan hadda saliidda hadda soo baxaysaa hadda soo tufaya saliidda waa arkaysiina malayna waxa soo yani kor ku wareegana oo xumbuxumbada ah waa saliidii waaye walaahi ana horta waan ka aaminsanahay balkan inuu bakteeriya qaado sababta isticmaalkiisa inkastoo fudud yahay oo maarta ku fiican yahay isticmaalka laakiin ma jecli magmad adib u fiirso ama yaraa kiisa aragto kaleeto ma noqonayo adoorihiis ma isbedelo wuxuu noqon qaab yani saliid ah ama dhuuxi cuntada kaga jiro kaleeto waa dareemaysaa marka waa kaas waxa saliid ka soo baxay laftiisa soo waxa marka hadda bakteeriya ahaan ay u galeen oo lafta ay kaga jiraan hada marka iska isticmaasho adiga digsigaagii oo kulul aad mar walba ku walaaqdid bakteeriya digsigaagii iyo cuntadaadii ku maqan tahay aad uga taxadira ilaahay kugu dhaarshay biyaha meesha ka soo baxay balaarig inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaas waa biyihii way qaboojisay meel ay dhigtay hadda ayagii ka dhaxbixisay biyihii waliba waxay noqdeen kuwo culus oo waliba aad u gaduudan oo fool xun oo dheerti ah marka aad looga taxadira insha Allah nadaafadu waa muhiim iska ilaali insha Allah ilmaana badanaa waliba wax loogu kariyaa baarahan waxyaabaha loogu jijibiyaa baradada iyo waxa ka ilaaliya caruurta